رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد البر ayaa xariga ka jaray wada casri ah oo dhirkeedu yahay ku dhawaad 2 kiiloomitir taas oo laga hirgeliyay degmada Wadajir gaar ahaan Buulaxuubay dhismaha wadadan oo qayb ka ah dadaalada xukuumadda Soomaaliya ay ku horumarinayso kaabayaasha muhiimka u ah caasimadda Muqdisho wadadan ayaa ra'iisul wasaaraha horay u dhagax dhigay 4 November 2025 waxaana lagu hirgeliyay muddo 3 bilood gudahood iyadoo loo dhisay si casri ah tayo sare leh taas oo muujinayso isbeddelka dhanka dhismaha wadooyinka ee ka jiro caasimadda si loo helo dhismaha kaabayaal waara oo u adeego shacabka ra'iisul wasaaraha ayaa xusay in horumarka kaabayaasha dhaqaalaha ee caasimadda uu yahay tiir muhiim u ah kobaca dhaqaalaha fududeynta isku socodka qurxinta bilicda magaalada iyo xoojinta amniga isagoo tilmaamay in ay wadaan oo door weyn ka qaadan doono isbeddelka muuqaalka degmada Wadajir ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in 10 sano kahor aan la filayn in xaafadan ay gaarto heerkan horumarineed balse dadaal wadajir ah oo u dhaxeeyo xukuumadda Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka ay suurta gelisay in Muqdisho ay maanta ka mid noqoto caasimadaha sida xooliga ah u kobcayo ee caalamka mudane gudoomiye marka hore Ilaahay baa mahad leh subhanahu wa ta'ala oo sidii aynu arki jirnay inuu naqiinayna halkan ka dhigay markii hore maantana sidaan u ekeysay Ilaahaas mahad leh markii halkan laamiga la taagan yahay oo aan hadda hortayda eego 10 sano ka hor waxa laga yaabaa inaan filaynin inay dhismayaasha sidan u qurux badan iyo magaaladani inay sidan u ekaato ama xaafadani ay sidan u ekaato in badan oo anigu ka mid ahay waxa laga yaabaa inaysan aad u filayn laakiin isbeddel weyn ayaa yimid isbeddelkana waxa keenay Ilaahay baa keenay thumma dadka xaafadan iyo guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa keenay waanu mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka oo runtii aad iyo aad committed ugu ah inay magaalada isbeddesho gaar ahaan infrastructure-ska iyo kaabayaasheedu inay isbeddelaan mudane gudoomiye akhyaarta sharafta leh jid la dhisay in badan baa la dhisay jidad meelo badan laakiin micna gaar ah waxa siinaya runtii jidadkan marbay ka dambaysaa maalinta ka dambaysa ayay jidadka la dhisay ka sii fiican yihiin kuwii kale marka waa horumarka oo runtii si isdaba socod ah ayuu asagii horumarka u sii horumaraya marka aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa adiga iyo tiimkaagaba sida wanaagsan ee muddo kooban aad laamigan quruxda badan aad u dhisteen aad baad ugu mahadsantihiin dadka dhistay ee shacabka dhistay ee canshuurta bixiyay ee ku garab taagnaa ee jidkani ka xirnaa ee u samray ee halkan soo gaarsiiyayna ayaguna way mahadsan yihiin waana u hambalyeynaya waxaan leeyahay hambalyo guud ahaan shacabka caasimadda iyo ummadda Soomaaliyeedba oo jidkan sidan loo qurxiyay laamigan ayaga loo dhisay laamiga in la dhiso waxa ku mataanaysan dhaqaalaha oo kor u kacaya markii laamiga la dhiso xaafadaas laga dhisay dhaqaaluhu kor buu u kacaya maxaa jira isu socodka fududaanaya markastoo isu socodku fududaadana waa suuqii oo xoogaystay markastoo suuqu soo xoogaysto oo tirada dadku ay bataanna markastoo oo businesska ama ganacsiga markaa socdaay uu kor u kaco waay marka dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaa kor u kacaya bilicda iyo quruxda magaalada iyo hygiene-keeda ayaa iyadana ku lamaansan oo way qurux badnaatay waa kan hadda quruxdeeda caasimadaha dunida ayay la tartamaysaa marka qurux bay leedahay amniga ayay wax ka taraysaa oo hadda qajafyo iyo waxyaabo falfoolxun iyo bacal la dhigdhigay iyo wax lagu soo dhuuman karaa ma yaalaan waa meeshaas quruxda badan ee wanaagsan waaye marka jidka la dhiso markii laami la dhiso laamiga la dhisay kaliya ma ahee qaybihii nolosha oo dhan ayaa la dhisay gabadha umusha ama uurka leh ee foosha ah
laga soo qaadi jiray meel jidkan soo qaadi jirtay waxaa laga yaabaa inay culays ku qabtay ama fogaanta ha noqoto oo hadda baabuurku intuu la soo jagjaglaynayo ama ha noqotoba in dhagxaan ay ku xidhnaayeen ama jidad ku xidhnaayeen laakiin maanta waa kan sidana loo sameeyey si degdega ayaa qofku meel kasta ugu gaari karaa caasimadda wax fara badan ayaa laga soo sameeyey waad ogtihiin oo waxaa la nidaamiyey bajaajyadii iyo dhibkii jiray iyo dilkii iyo mashaakilkii amnigii baa micno laga qabtay waad ogtihiin oo caasimaddu ay amni tahay markhaati baad ka tihiin idinkaa doorasho ku galay safar dheer ku galay ayada oo aan waxar laga dhiijinna alxamdulilaahi waa tii inoo dhammaatay ilaahay baa ku mahadsan magaalada marka sidaa u eg ee sidaa u xasiloon ee sidaa u horumaraysa ee amnigeeda sidaa u horumaray waxaan kula dardaarmayaa shacabkeenna qiimaha badan ee reer banaadir inay nabadgelyadooda ilaashadaan bilicdooda ilaashadaan quruxdooda ilaashadaan inaan la khaldin inaan magaaladan la suuro xumaynin inaan magaceedii qiimaha badnaa ee soo noqday ee la soo celiyey inaan dib loogu celinin magacxumadii iyo foolxumadii iyo dhibka ay soo martay inaan dib loogu celin dadka qaarkood macnaha waxay u baahan yihiin inay soo booqdaan oo ay yimaadaan oo ay arkaan waxaa laga yaabaa in maansadkooda uu horay ugu jiro waxyaabihii ay maqli jireen ama ay arki jireen laakiin waxaan rabaa inaan u sheego muqdishadii aad taqiineen ma aha muqdisho way soo noqotay caasimadaha ugu amniga badan ay ku jirtaa caasimadaha ugu korista badan ayay ku jirtaa marka la fiiriyo siday u korayso muqdisho way isbeddeshay waxaan rabnaa marka sidaas ay isu beddeshay inay ku sii socoto mana istaagayso insha allah way ku sii socon doontaa mashaariic waaweynaa ka hirgeli doontaa haddii ilaahay yidhaahdo wayna sii fidaysaa wayna sii qurux badnaan doontaa mar kale waxaan rabaa inaan dhammaantiin idin hambalyayo qorrax baa taagantihiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin hambalyo ayaan idin leeyahay waxa laynaga filayaay waa inaan ilaashanno hantideenna guud oo ay laamiyadu ugu horreeyaan hanti guud weeye lacagteennii baa gashay innagaa isku leh waan wada leenahay waa xaqeennii waa xaqiinnii waxaa loo baahan yahay marka in aynu baranno haddaan ummadda soomaaliyeed nahay waxaan isku leenahay ee dawladnimada ah ee hay-adaha ah ee dhismaha ah ee dalkeenna ah inaynu wada ilaashanno oo dhammaanteen aynu xil iska saarno haddii bac lagu tuuro qofka bacda ku tuuray u sheeg waxaa dhahdaa ha ku tuurin meesha ka qabo waana alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar ayay weeye oo sidaasay dadka muslimiinta ahy waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar marka dadka muslimiinta waxaa loo yaqaanaa qofka hadduu dhexdooda wax ku sameeyo inay gacanta ka qabtaan marka inaynu iska qabanno intayna xumaynaysa waabana iska qabannay ayaynu halkaa nabad ku hellay marka isbeddelkan aad aragtaan ee yimid ee nabadda ku yimid dadka isbeddelay quluubtooda isbeddeshay ilaahayna ma beddeloba ummadda ilaa ay ayagu iska soo beddelaan marka dadkeenna hadda gaar ahaan reer muqdisho ayaa fakarkoodii fiicnaaday isbeddel baa ku yimid dawladnimadii bay jeclaadeen amnigii bay jeclaadeen noloshii bay jeclaadeen yacni waxaa waaye sidaasay ku timid isbeddelku sidaasuu ku yimid haddayna ayaga ka imaanin isbeddelku ma imaadeen marka waynu sii wadaynaa halkaasaynu kaga taagnaanaynaa guddoomiye magaaladeennu waxay u baahan tahay dhirayn in la raaciyo dhismaha marka la dhisaayo in loogu talagalo in laamiga in la dhireeyo magaalada in la dhireeyo in loogu tagaan u baahannahay marka magaalada hadda laamiga waa qurux badan yahay laakiin waxaan u baahannahay xaggee loogu talagalay inay geedihii ka baxaan xaggee loogu talagalay inay dhirtii ka baxdo waxaan u baahannahay inay dhirayntii inay ka muuqato magaaladaan u baahannahay marka yaan intaa yartaa laga halmaamin magaaladan dhirayn bay u baahan tahay aan dhirayno aan qurxinno aad iyo aad baad u mahadsantihiin